ugaaska shalay halka laga cishay maxaan ku dhahdaa dadkiisii soo dhaweynayay iyo madax dhaqameedkiisii iyo intii midnaba aan loo turin inta RRU la duldhigay oo ciidamo boolis iyo military iyo maxaan ku dhahaa RRU la geeyay meeshaas la duldhigay ya ma uu ahayn siyaasi ma uu ahayn maxaan ku dhahdaa al-shabaab ma uu ahayn al-qaacida ma uu ahayn يعني argagixisooyinka caalamka ka jira wuxuu ahaa ugaas dhaqameed u socda dalkiisa iyo dadkiisa waxa la yiri dibiga gowrac weysho ha ku quusatay ugaaskiini markaad garbadoobteen eed goobta ka celiseen ubadkiini markii rasaasta lala dhacay ee inaba dhanu firxatay hooyooyinkiini markii la soo baacsaday una allaabaha ku yaala inaan yaro qayrkiini hilaha waxa idin ku xigtay isla galabnimadiina waxa maxaa social media la soo dhigay warqadii Muuse in adeerkii maxkamadda ka soo saaray ee la soo dhigay ya ina biixi ima soo direen RRU ima soo direen boolis ima soo direen maxaan ku dhahdaa military haddaan barkay ku jirin ima soo direen imana yimaadeen ubadkayguna dhaawiciisu dhakhtarada ma yaaleen qaarna lixaadkooda ma waayeen war mabdiina iska wata oo ugaaskiina inaad guriga keentaan oo maxaan ku dhahdaa ra'yigiina iska wadataan maxay idin diiday ya kalamaan ninba saddex dumar lahaa wuxuu yiri sii jeesta buu dhabarkan idin taabantaan jecelahan dhabarka taaban saddexdiiba wuu wada taabtay samaroon hadduu sii jeesta dhabarkan taabanne ku sujuudayo ilaahay buu leeyahay da'yarta soo kacaysana waxaan ku boorinayaa cidina maqna eela idinma qodna ilaaha weyna waaxida wax ka suga ilaaha weyna waaxida wax ka suga inakuna de aayihiini awooyaashin baa god ku riday iyo adeeradiina godka Allah idinka soo foqo hadday u qaateen maanta ugaaska inay sharaftiisii wax yeeleen waxba ma yeelin ugaasku wuu sara maray xidiguhu gaadhay waayo nin dadkiisa u dhintay tolkii u dhinteen dhalinyaro u dhimatay la rabay ayaa halka ka soo baxdo ilaa 12 habeenimo ayay rasaastu dhacaysay oo taayirada la shiday waxa bad la iskaga dhigay ugaaskaygiina siiyay laalaha ha u qaadanina Soomaaliland inay ugaaska sharaftiisa wax yeesheen hore u maray ugaasku imikana gobolkiisa isaga ala waqti uu yimaadaba uu imani uu ka dhax qodbadayn waliba afartan waxaan sheegayaa intay dhaqaaqeen waxbaan Soomaaliland ku haynaa leh wax alla waxaad u haysaan ma jirtay been baad u sheegtay waxay wax ka go'aan waa dumar iyo dhalinyar iyo aqoonyaha intiiba gacantayniiguma jiraan intiina gacantayniiguma jiraan oo dhalinyar iyo aqoonyahan iyo culimo u diinba de waxaan isku raacsanaynaa inaan xaqayagii ka helo beesha dhexe haddaan xaqayagii ka weynana de cid khasab kuma laha waxaan u sheegayaa ugaas Cabdirashiid ugaas Rooble inuu maanta waxa lagu xuyeelay una jirin u guuleystay u guushaana insha Allah bidmillaahi kariim ku sii wadi doono uu iman doono 20 aan waris isagoon cidna keenin gobolkiisana cid u daba fadhiisan maayo oo uga marti gashiin maayo waxaan sheegayaa doorashada aan ku soo noqdo doorasho halkan horta ka dhacaysa ma jirto ilaa aan saami qaybsigayagii iyo waxaan xaq u lahayn aan ka helo waxba yaan been la isku sheegin kuwan ku imanaya ku soo socday warka ku soo qaadayana bari dhib haday dhacdo dhinacan bay soo marayaan ha isku halayn waxaan adduunka baaq ugu dirayaa rasaasta nagu dhacday ee dhibaato nologu geystay ee bikemiyada nologu furay in adduunkuna arkaan aqoonsi baad raadinaysaa dhabarkaad ka jabtay Soomaaliland aqoonsina inta cirku ku jiraan adduunka laguma arag qofku wax uu taban karaa ugaaskiisu soo dhaweynay sharaf buu ku soo dhaweysanay war ugaaskayga aanu tagayay siida in xabada loogu furo maati lagu laayo dhakhtarada yaalaan horta maanta dhabarkaad ka jabtay haddaad ugaas baad wax yeeshay islahayd qarannimadaadii Soomaaliland baa baabacday musabixiyo waxayna ku baabaaday afartaa ku taliyay kugu yiri ugaaska celi ugaaska way la hadlayeen habeennimadii ugaas soo galbay lahaayeen adigana waxay kugu yiraan ugaaska naga celi kuumay talina way ku jabiyeen cid walba waa la soo dhaweeyaa shakhsi maalin kubad yar baasay ayaa la soo dhaweeyaa shakhsi maxaan raday mushkilad sameeyo jeel laga soo daayay ayaa la soo dhaweeyaa baabuur loo qaataa
waar ugaas sharaf leh oo 18 ugaas ku abtirsaday oo maanta dhaqankii yaqaana diintii yaqaana aqoon-yahana ayuu ahaa sharaf leh dhibaato u mugaysanin xukuumadda Soomaaliland lagama hayo carab xun iyo dhawaaq aflagaado uu kula dhaqmay dawladda lagama hayo uurka bini'aadankana lagama ugaarsada qofka afkiisa waxa ka soo baxaa la eega shalo u dambeysay salaxlay waxa ka dhacay maxaan radaaye mudaharaad shakhsi bini'aadana laguma toogan oo dib laguma geysanin anagoo uga soo dhaweynayna waa ku awlaadeedii dhakhtarada yaala waa tan la weeraray ee tignikana loo isticmaalay ee bud iyo dhagax lagu soo eriyaday ee dhibaatada inta loo geystay sheekada anaga ay naga wadaan 24 saac kulna xaga u socoran kulna xagan baabiinayaan ragaas way isgaranayaane ha isku xishoodeen foolxumada iyo gobolka iyo fadaxada ay gobolka u soo jeedaan iyo taamaantana qabsatana iyaga ka wakiilada nimanka iyaga ah ee isgaranaya waxaan oran lahaa xukuumaddu sidan dib ha uga noqoto dii gobolka doorashooyin laga doonayo dii gobolka laga doonayo in wax laga helo dii gobolka cadaadis iyo xoog waxba lagu ma qabto dhalinyaro waxaan oranayaa yaana in duufsan odayaashu waa odaya sii socdo oo bariis mooyaan garaad kale lahayn inta in raacsanuun hoggaan ka dhigto oo inta kale dhag ha u dhigina hadalladoodana ha raacraacina ana reehebelana ha odhanina ana reehebel waxa halka ina dhigtay ee bilaadikada inaga dhigtay ee bila ereboodka inaga dhigtay ee hay'adihii inaga rartay ee bila amalka inaga dhigtay ee kuwii u horeeyay amuud ka qalin jabiyay iyo kuwa imikuba ay alooliyowga ku nool yihiin iyo halkeedu shaqo tagi